digniin ku socoto waalidka iyo qof kasta oo gabar walaalo la tahay nooca rabta ahaato. Dardaaranka aan Aabbe isiin oo idin soo gudbinayaa waa dardaaran yacni Allah u naxariisto Aabbahay oo aniga isiiyay maxaa yeelay ilmuhu dhala anaa u weyn oo curadna u ahay gabarna ahay. inkastoo ani Aabbahay aan isla nooleen haddana Aabbahay maasha Allah sheekhna ma ahayn laakiin qof wuxuu ahaa maasha Allah oo muxtaram yacni gabdhaha iyo wiilasha inay isdhex galaan ogoleen yacni diinta aad u jecel ku adag u ahaa Aabbahay. Allah u naxariisto igu soo duceeyay dhammaantiin. Aabbe Allah u naxariisto adiga waxaa u maleynayaa markaas waa yaraay gabdhaha markay soo kacayaan oo dadka dhan wada arkayaan oo waalidkana aysan ka fakaraynin badankood aysan ku baraarugsaneyn xilligaas oo is dhahayo waxaan dhoocisha yaa dhoocisha Allah moogtaade dhoocishaan la iska dhahayo ahayd xilligaas. waxaa xasuustaa marka Aabbe oo iska shaqo badnaay anigana asagana maan isla joogi jirin safaro iska ahaa jiray wadamada dibadda badanaa jiri jiray markuu imaado kaleeto salaana badanaa isku arki jirnay isku meel ma ku nooleen. alxamdulillaah haddana saasay tahay wuxuu ahaa mar walbeeto markuu arko halka mar oo i arko inuu wax badan ii sheego ila taliyo iwaaniyo oo yacni idhaho maxaa la waxyaabahaas iska ilaali. marka waxyaabihii ugu muhiimsanaay oo igala hadli jiray oo hadda loo baahan yahay gabar walba inuu waalidkeed kala hadlo waalidiinta walaalaha intaba iyo gabar kastoo hadda i maqlayso gabdhaha hadda 8 sano jiryaasha iyo wixii ka weyn maasha Allah fuurba waaye wax walba ha loo sheego min fadlikum. waqtigii hore waa lasoo dhaafay dadkii hore yacni oo maxaa la lahaa iyo dadka hadda yaryar isku mid ma ahan isku si u fakaraan maskaxda lagu kala duwan yahay wax badan. dadka qaar weyninka waxay u yaqaanaan qolofka ma ahan qolofka weyninka maskaxda la is dheeryahay dadku isku maskax ma ahan. alxamdulillaah Aabbe marka wuxuu ugu yiri yaa warka idinku dheereynin Aabbe wuxuu ugu dhahay talada u siinayo waxay ahayd yacni waqtigaas aniga soo kacooyo dadka dhan ay ku fiirinayaan waalidkan aysan kaa warqabinin badanaa aysan mushkilad iska saarinbo ayaga xumaan ma ka aha laakiin maba ka warqabaanba waxa jiro badanaa indhaha caalamka dhanna way kugu soo jeedaan qof soo boodayaa tahay waa lagu wada dayoyaa ma fahamti. marka waxaa dhacday Aabbe Allah u naxariistay wuxuu ugu dhahay waxaa iska ilaalisaa 3 nin ani marka ka badan inay ahaydna waa jeclaha laakiin ma xasuusan kari laakiin 3daana mar walba maskaxdeyda ku taagnaa jirtay. wuxuu ugu dhahay 3 nin iska ilaali. number 1 midka koowaad waxaa waaye ninka oo xamaaliga dadka oo xamaaliyaasha waa taqaantiin ma waaye xamaaliyaasha oo maxaa la qaadaan alaabaha cidaa u keenaan number 1. Aabbahay marka Allah u naxariistay ani ii faahfaahina ma dhihin sababtoo markuu Aabbe la hadlaayo Aabbe Allah u naxariisto yacni waa ka baqi jiray runta fiican mogta waalidkana qofka inuu ka cabsoodo way fiican tahay saasay tahay. Aabbahay asoo looga cabsoonaa haddana waa ilmihiisu ka warqabay wuu la tali jiray waxaa ninka rabaa waalidow ilmihiina yacni ha inka cabsoodaan laakiin la taliyo waxyaabaha jira u sheega aabbayaasha weliba fuurba waa nimanka waxyaabaha suubiyaan dhan way ka warqabaan. marka Aabbe wuxuu kow igu dhahay ninka ugu horeeya waxaa waaye ani inta xasuusteyda waa sababtoo aad u yaraay wuxuu ugu dhahay kow nin xamaali kadib anigii wixii sii fasir doona laakiin asii ma fasirin. wuxuu dhahay nin xamaali iska ilaali. number 2 wuxuu ugu dhahay nin oo ciyaal suuq ciyaal suuq qof yacni nin waxba baranin iska ilaali oo darbi fadhiis waa aragteen u maleynaa wiilal oo darbiyada iska fadhiyaan oo waxba baranin oo waqtigooda ku qaataan halkaas laanduuha dheelaan maxaa la yiraahdaa balwado kale ha ku sameeyaan ciyaalka xaafadda ku shiriyaan geedaha waa la yaqaanaa ma ay jiro. marka wuxuu dhahay ninka koowaad waa xamaali ninka labaadna waa midkaas ciyaal suuq oo waxba baranin. kan saddexaad waxaa waa kirishbooy waa taqaantiin ma dadka xamar joogo waxaa waa midka sooga gaariyaasha ka marka aniga gadaala ka fahmi doonaa because waa yaraa markaas caqli ma lahayn. 3daas qof ma ahan markii kirishbooy la dhaho ma ahan qof xishooda kirishbooyga number 1 hadaa kasoo bilaabo kirishbooyga waa taqaantaa wuxuu rabo afkiisa ku hadlaa gaariyada soo raacdeed buu iska kaacaynaa adoo waxba dhihin inuu iska kaa daldalmaa. marka waa qof oo yacni diintiisaba ilaahay ogyahay
qofka kale xiga waxaa midka oo asna fadhiya xagga sidoo oo maxaa la waxba barin ciyaal suuqa asna wuxuu rabo afkiisa ka sheegaya sababtoo diin ma jirto ixtiraam ma jiro wanaag ma jiro qofka markuu waxbarasho leeyahay diin ha barto amaadi ha barto yacni maxaa la lahaa maskaxdiisa iyo wixiis way korayaan xishooda xoogaa yaro ku jiro laakiin kan xishoodka dhan ma jiro kirishbooygana asna xishood ma jiro waa iska kacayna adoo dembi ka gelin oo haddoo rab iska aflagaadeyna gabara gaariga soo karee markay sii digaysa 100 ina laga sheega san waaye inta waaye hebelo waaye kan waaye bararaq baq marka nin saas ee haddii qoorta aad gashtid yacni waxa kala kulmaysid ilaah og yacni saas waalidkay ka waday ninka kaleeto oo xamaaliga asagana sidoo kale xamaaliga aragtay ma xishoodo asina sidoo kale ma xishoodo wix allaali wix afkiisa doona iskaga hadlaan dadkaasiiti marka saddexdaas nin aabe igala taliyay marka walaahi mar walba ugu soo dhici jirtay tala kale waxaa jirta muhiim jiddan oo hadda aan arko oo badanaa gabdhaha maku baraarugsano waalidkood horta maba aysan kala hadlin kala bar laakiin maku baraarugsano waxaa waaye gabdhaha maka warqabaan aabbo wuxuu ugu dhaha alaa naxariiste weligaa nin balan ha ka qaadin tan xigto daba socod waxaa weligaa nin xoolo oo leeyahay ama lacag oo leeyahay ha ka qaadanin marka labadoodasba aan aabbahay ma ii fasirin laakiin nin balan ha ka qaadin yacni mustaqbalkaaga iyo guurka markii la joogo kaleeto oo isla sheekaysanaysa waa isguursanaynaa oo ballan ha dhihin because waalida lagu yahay meeshaas ani ka dareemaya markaas saytu ma fahmaynin laakiin xoogaa markaas soo weynaadaa dareemay waalidaa lagu yahay waalidkaa doo rabo qofuu kula jeclaado kuu keeni karaa markuu kuu keena adina qofaa ballan ka qaada ballantaas been waaye mala ogolo diiniyan marka saasuu aabahay ugu dhahay tan kaleetana weligaa qof lacag ha ka qaadanin nin islaameed lacag ha ka qaadanin maxaa yeelay waa aragteen hadda gabdheena kala bar nimanka lacagay ka qaadaan kabacdi maxaa ku dhacaayo gabadhii waalanays qofkii ee lacagta ka daldasha beena u sheegtay balan beenahayna barwalka qaaday waa isguursanayna waxaasay ku dhahee dan waxaabaa lacagta bay ka qaadee kadib qofkii nin kaleeta guursanaya gabadhii waa laga dhex hadlaaya ama waa laga dhex qirnaa waali camal oo ku noqonaa qofkii sababtoo ee qof la qiyaamay waa ishiisa kasoo baxeedo ish biniaadanka buurahee dumisaa been ma aha marka alxamdulilah horta aniga ilaahiya horta wax dadka waafajiyo laakiin tala muhiim kale ayadana jirto oo anigana markii aabahay oo idhahay waxaa jirta ku waalnaabo seeba lagaaga celi karaa marka adiga gabdhaha soo kackacayaan kibir kaliya waa mugdisankaa la taagooyahay waxaa jirtay waxaa lii diidi jiray alaa naxariista aabahay goono ma ogoleen gabar goono xirata dhan mala tusi jirin ilaahay amarkiis dad kaleeta ii sheekeeyeen ani aabahay wax hadduu ii sheego masii daba kici jirin mana weydii jirin marka dad kaleha waxay ugu dhaheen oo waalid kamid ah goonada wuxuu ku nacay gaalada badanaa goono xiro jireen asigana marka wadamadaas uu yaraantiisana kusoo koray waxna shaqadiisii waxaasna ay ahayd uu badanaa joogi jiray marka waxaa lalahay goonada ayadoo wadato hortiisa oo mareedo hadda kahor qisa camal saas ku dhacday ma sii xasuusi kari laakiin asoo jidka maraya wuxuu arkaa lahaa dhowr jeer adigoo goonooyin ka siibanayaan naagihii gaalada ahay marka saas darteedu u nacabo goono dhanbo saakaha la xirtuun dhihi jiray alaa naxariista aabe marka aniga bismillaahi goono lee maahan wax kale ma ogolaa jirin goonaha lee xirooy goonooy iidoo kale dhar markii leegadaa goonaa rabaa hee iskuulka uniformkiisa goonaa rabaahe alxamdulilah markaa soo weynaado xoogaa yar caqli yeesho aaba dhinta allah u naxariistay markaas xoogaa yani kusoo baraarugay ilaa haddana goone mixirta xataa waa necbaha min cindillah ilaahay biskay nacsiiyabo marka waa kaasaa walaalayaalow dardaaranka aabaheyna waa kaasaa insha allah gabar kastoo aabaheed dhintay ama gabar kastoo aabaheed la talin ama gabar kastoo aabaheed hadda la noolyahay ama se wax u sheegin abaayo waa dardaaran wax kuu taraya aabahey waa aabahayoo kale yacni gabar kastoo soomaaliyeedoo wuxuu la necbaa dhibka gabar kastoo soomaaliyeedoo wuxuu u diidanaa inay dhib gasho marka asalaamu calaykum waa idin salaamay waxaa idinka rajeynaa inaad dardaarankaasna qaada doontiin dhammaantiina wiilal iyo gabdho wiilashana waxaa dhihi lahaa oo ugu dambeyn kula tali lahaa aniga ahaanteyda wiilow gabar walaashaaya ha xumeynin gabadha aa xumeynaysid kasoo qaad walaashaa inuu wiilkale sidaas u galaayo gabar walaashaa haddaa maanta waxxun kusoo bisid ama si xun aa ula dhaqantid walaashaa waa laga jaraa haddii maanta ay soo daahdo berri ayay dhaceysaa haddee gabadha walaashaa kula dhalata ku dhicin waxay ku dhaceen middaa dhashay middaa qabtid
oo in laguu soo dagmaro xaaskaaga ma ogashahay waa maya. marka haddaba xumaan ha soo geysanin, gabar walaashaa ha ku xadgudbin yaa. marka waa kaasaa, waa idin salaamay asxaabta ku xiran umusuuna dhammaantiin meel walbo joogtaan. fadlan nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay, inta nala joogtana waa mahadsantihiin dulqaadkiina. muuqaalka xiga waxaa idinkaga tagaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.